ciidan qaran iyo hay'ado amni oo xooggan ayaa lafdhabar u noqda xasiloonida iyo qarannimada uu dal leeyahay. kaalin aad u muhiim ah ayaa ay ka qaataan ilaalinta xuduudaha iyo sugidda ammaanka gudaha. haddii aanu dal lahayn xuduud ciidan iyo hay'ado ammaan oo taya leh, waxa uu u nuglaadaa khataraha dibadda kaga imanaya iyo xasilooni darro gudaha ka dhacda. sidaasi awgeed, dib u habaynta ciidamada iyo dhismaha xuduuddiisu muhiimad weyn ayaa ay u leedahay xoojinta awoodaha ciidamada kala duwan ee qaranka si ay u sugaan nabadda, u taageeraan horumarka, una dhowraan sharafta iyo xuquuqda muwaadiniinta. boqolkii maalmood ee ugu horreeyay xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu suura gashay in la dhammaystiro qaramaynta ciidamadii madaniga ahaa oo foolxumo ku ahaa haybadda qaranka. shirkayga haddii la galo somalilan baa ku qoran dalkayga wixii daldama qorshaa jira lagu seexay qaranka marna kama kaftamo waxaana nidaamka casriga ee sawirka buudayshi lagu diiwaangeliyey ciidamada qaranka si meesha looga saaro caaglaynta, korna loogu qaado isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. in ciidamada tirakoob iyo diiwaangelin rasmiya lagu sameeyo waxay bilow u noqonaysay mushahar kordhintii ballaadhnayd ee madaxweynuhu u ballan qaaday, waxaana ay suuro gelinaysaa in askariga iyo qoyskiisu ay helaan adeegyada xukuumaddu ay ugu tala gashay oo ay ka mid yihiin daryeelka caafimaadka, waxbarasho lacag la'aan ah, iyo in si cadaalad ah loo maamulo dallacsiinta, abaalmarinta iyo mushaharsiinta ciidamada kala duwan ee qaranka. ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Somaliland waxaa maanta ay awood u leeyihiin iyagoo isticmaalaya tiknoolajiyadda inay si dhow ula socon karaan dhaqdhaqaaqyada ka jira xuduudbadeedka jamhuuriyadda Somaliland, taasoo kor u qaadaysa awoodda ay Somaliland u leedahay ka hortagga dembiyada badaha ka dhaca sida kalluumaysiga sharci darrada ah, burcadbadeedda, tahriibka iyo ka ganacsiga aadamaha iyo wixii la mida. dalka maxbuuti siiyey barbara mudana meeshay ku taallaa muhiimad weyna muftaaxi weeye mandaqadoodan. xukuumadda wadajir iyo waxqabad si ay u tayeyso ciidamada qaranka waxay boqolkii maalmood ay jirtay tababaro leyli sarkaal iyo sidoo kale aqoon kororsi dibadeed oo heer sare ay uga faa'iideysay in ka badan 700 oo sarkaal oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qaranka. geesiyada dirayska u xidhay ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda Somaliland waxay mudan yihiin abaalmarin si kor loogu qaado nolosha ciidamada. mushahar kordhintii 250 ahayd ka sokow waxa waxbarasho lacag la'aan la siiyey 1,000 ka mid ah carruurta agoonta ah ee ciidamada qaranka. madaxweyne waxa salaataada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka dadamiska qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo kugu soo dhaweynaya taliska guud. madaxweyne ku soo dhawow. ciidankii dabko isku duuban oo dab halkuu ka kaco aan ka daahino durbaliiban taga xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxaa boqolka maalmood ee ugu horreeyay shaqadeeda ay dhistay 7 xarumood ay ku soo kordhisay talisyada ay leeyihiin ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Somaliland, waxaana ay dib u cusboonaysiin ballaaran ku samaysay qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada bileysku ay ku leeyihiin caasimadda Hargeysa. waxaa tababaro iyo aqoon kororsi la siiyey ciidamada dabdamiska iyo samata bixinta, waxaana kor loo qaaday sugidda ammaanka garoonka diyaaradaha Cigaal International ee magaalada Hargeysa oo la gaarsiiyey halbeegyada ammaanka ee qaramada midoobay ay u dhigtay amniga garoomada diyaaradaha.
xukuumadda wadajir iyo waxqabad boqolkii maalmood ee u horreeyey waxay kor u qaaday tiknoolajiyadda ciidamada waxaana ay muwaadiniinta iyo dunidaba tustay awoodda isku tashiga wax wada qabsiga iyo wada lahaanshaha qarankani jamhuuriyadda Somaliland boqolkii maalmood waxaa inoo qabsoomay shaqo sees adag u noqon doonta waxqabad intaasi ka ballaaran oo lagu gaadho rumaynta hiraalka qarankani jamhuuriyadda Somaliland